السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسku soo noqod wanaagsan oo xiiso leh waxaan rajeynayaa dhammaan caafimaad qabtaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay conversation dhexmaraya Xaliima iyo Asma laba qof laba gabdhood ee ka adeeganaya meel supermarket ah ama dukaan weyn ee laga dukaamaysto so at the supermarket marka waxaan rajeynayaa cashirka marka saan ugu dhamaato inaad in badan haddii aad supermarket saaxiibka ama saaxiibada u raacdo inaad waxyaabihii aad ku adeegan lahaydeen dhammaan English ahaan aad uga wada hadli kartaan soo dhawaada waxaan ku bilaabaynaa Xaliima oo tiri hey Asma saaxiibadeed ee la socoto waxay tiri hey Asma look at those ingredients look at those desserts fiiri ay tiri dessertka ayada dessert waxaa la yidhahaa horta those markaan idhaha waa plural shay plural oo ka fog ee gacanta ku taagaysa la yidhaha those dhammaan dadkii ugu xirnaa Xareed Academy way yaqaanaan grammarka meesha aan ku qaadanayni iyo ereyada aan isticmaalno that's why aan hore ugu iri grammarka adigoon garanaynin conversationku waad ku dhibtoonaysaa look at those dessert bal fiiri tiri dessertka ama macmacaanka ayada ah how about baking some cookies today maanta sideed u aragtay tiri haddii anaga aan dubano ama aan diyaarsano ama aan karsano cookies so baking waxaa la yidhahaa waa la dubayaa shiilitaan maaha waa dubitaan ama doorsho ha noqdo ama bur ha noqdo wuxuu noqonayo laakiin waa shay qalalan ee saliid ama foorno lagu sameynayo waxaa la yidhaha baking cookies marka waxaa la yidhahaa macmacaanka guriga lagu samaysto ama galabka ha la cuno ama safar ha loo qaato ama ha lagu faakidaysto ee miiska inta lasoo saara qalalan ee shaha lagu cabo iskoola cookies waa wax walba bur laga sameeyo ee la dubo ama la foornayo then Asma waxay tiri ayadoo madax ruuxaysa waxay tiri yeah ha camal waa yes camal waay that's a great idea taasi waa ra'yi wanaagsan great idea while we are here let's pick up the ingredients intii halkan aan joognay tiri while we are here halka intaan ku sugana supermarketka gudihiisa hore aan u qaadanay tiri ingredientski muxuu yahay laga hagaajin lahaa cookieska ingredients waa maxay marka ingredients waxaa la yidhaha maanta shay haddii aad karin rabto ama bariis ha noqdo ama bur ha noqdo wuxuu noqonayo waxaad u baahan tahay waxyaabo la isku dardarayo min bilow ilaa dhammaad tilaabo wix loogu qaadi lahaa it's called ingredients wixii adiga shayga aad ka samayn lahayd ayaa la yidhaha ingredients then Asma hadalkeeda sii waxay tiri okay what do we need horta maxaan u baahannahay what do we need su'aal ayay ku soo celisay Xaliima marka waxay tiri the recipe calls for flour recipe marka haddaanan intaan cashirka hore u gelin aan recipe micneeyo recipe waxaa la yidhahaa tusaale maanta waxbaad karin rabtaa biyaha dabka markaad shido biyaha aad saarto inta qiyaasta biyaha ama ha noqdaan hal galaas ama laba galaas ama saddex galaas ilaa heerka shayga aad karinayso uu ka bislaada laga soo dejiyo laga cuno tilaabooyinkaas dhan ayaa waxaa la yidhahaa recipe tilaabada iskugu xigaan tusaale sokor biyaha horumarinaysa waad karinaysaa sokorteed ku daraysaa caleynteed ku daraysaa caaneed ku daraysaa waa markaad shaah karinayso kale iskol recipe waxaan kaloo u baahanay tiri the recipe calls wuxuu sheegaya tiri flour inaan bur u baahannahay sugar inaan sokor u baahannahay iyo butter inaan u baahannahay subag oh we also need eggs ayadoo ilaawi rabta waxay soo xasuustay in loo baahan yahay eggs ukun and chocolate chips waxaa la shukulaatada lagu darsado burka ee markii doorshada la sameysanayo kale ee budada ama jarjarka ah ee mirmiraha ee daadsan then Asma waxay tiri why don't you get the dairy ingredients intaad waxaa naga dayso waxyaabaha lo'da laga dhaxlo dairy ingredients waxaa la yidhaha waxyaabaha lo'da laga helo ama lo'da laga soo saaro maad noo raadisid you will find those in the refrigerator section in the back of the store waxaa laga helayaa tiri kuwa ayada ah ama dairy ingredientska refrigerator section qaybta waxyaabaha qabowga ama waxyaabaha fridge-ka u baahan lagu kaydiya ee dhabarka dambe ee baqaarka store I'll get the dry ingredients anigu waan baxaya tiri dry ingredients kan soo qaadaya they are in the isol 10 dry ingredients waxa waaye waxyaabihii lagu karin lahaa ee khalalan fridge-ka hadii ku jiraan shayga wuu qalalan yahay okay waxay tiri they are in the isol 10 isol number 10 isol waxaa la yidhahaa tusaale marka supermarket soo gasho wuxuu leeyahay sectionna ama qaybo ama lane walba wax gooni ayaa leh lane kasta laneka waxaa la yidhahaa isol then Xaliima said great way wanaagsan tahay let's meet at the checkout adigana halkaas aaday tiri refrigerator sectionka nooga keenay dry ingredients aan banaanka ku kulano checkout-ga meesha lagu baxayo checkout marka waxaa loo yaqaanaa supermarket qof markuu ka adeeganayo markaad galayso kale wadamada horumar markaad tagto iridda qof baa fadhiyo waxaa ku yaala armaajooyin waaweyn ee lambarra ku qoran yihiin lama ogola alaabta aad sidato xataa jaakada aad gashanta inaad gudaha la gasho waa laga reebayaa meel lagu gelinaya lambar lagu siinaa lambar meesha alaabta lagu gelin lambarkeedii gudaha la gali waad soo adeeganaysaa
marka toolaad lambarkeed keenaysa alaabtaadii tartiib sidii lagugu siinaya meesha ayada waa check out meesha lacagta lagu dhiibo waa check out meesha inta trailerga aad riixdo banaanka aad geyso gaariga aad saarato parkingkana waa check out still asma marka waxay tiri okay see you there aan isku aragna halka aan dulmarna marka intaanan aan vocabulary ama new words aan ugu galin Halima hey Asma look at those desserts how about baking some cookies today Asma said yeah that's a great idea while we are here let's pick up the ingredients Asma said okay what do we need then Halima said the recipe calls for flour sugar and butter oh we also need eggs and chocolate chips then Asma said why don't you get the dairy ingredients you will find those in the refrigerator section in the back of the store I'll get the dry ingredients they are in the aisle 10 then Halima said great let's meet at the checkout then Asma said okay see you there new words ama vocabulary aan ka baran waxaa kamid ah dessert maxaa la yidhahaa waxyaabaha macmacaanka ah ayaa la yidhaha dessert how about baking maxaa waaye baking waa foornayn ama dubitaan cookies maxaa waaye shayyaasha burka laga hagaajiyo ee macmacaanka ah ayaa la yidhaha cookies ee guriga lagu samaysto idea maxaa waaye ra'yi ama talo ingredients maxaan dhahay wax walbo loo baahan yahay wax laga samaynayo bariiska markaad karinayso waxyaabaad u baahan inaad isku dardarto ayaa la yidhaha ingredients recipe waxaa la yidhahaa tixraaci qofka bini'aadanka markuu bur samaynayo kale meeshuu kasoo bilaabaya ilaa meeshuu ku dhammaanayo flour burki sugar sokor butter okay waa subag eggs ukun chocolate chips waa chokolaatada jarjaran ee lagu darsado doorshada dairy ingredients waxaa la yidhaha waxyaabaha laga soo saara lo'da ama lo'da laga dhaliyo refrigerator section qaybta dhabarka dambe ee meesha yani waxyaabaha qabowga u baahan lagu kaydiyo sida malaaygo kale subagoo kale farmaajado kale like that store waa baqaar ama maqaasin dry waa qaleel ingredients waa kasoo hadalnay isol maxaan dhahay isol supermarket markaad soo gasho section qayba line oo kale laymanka mid walba waxbaa ku xusan line-kaas waxaa la yidhaha isol check out meesha banaanka dibadda marka looga baxo ama alaabta kasii qaado ama lacag kusii bixi ama kasii raro alaabtaada iskoola check out waxaan rajeynayaa inaad ka hesho casirka haddaad ka heshay fadlan like saar siina share garee asxaabtaada gaarsii si ay uga faa'iidaystaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaa kaloo idinkula talinayaa wixii talo iyo tusaale ah ama ra'yi ah inaad igula wadaagto qaybta commentiga hadduu cashirku kusoo gaaro hanaga xasin hanaga bakhayle inaad wax noo sheegto waayo waxaad noo sheegaysaa ama talaha tusaalada commentiga aad nagu soo qorto waa noo muhiim waayo waxay naga saacidaysaa in adigana aan kuu sii faa'iideyno anagana wax badan aan ka bedelno waxyaabaha aan idin soo gudbinayno Allah kugu anfaco dadaal in badan ayaan leeyahay ku ekaanin conversation oo kale ah grammarkana ka soo qayb gal Xareed Academy ugu soo booqo waxaan idin sheegayaa haddaadan grammar garanaynin conversationka wax uu ku sheegay ma lahan conversationka waa ereyada grammarka aad ku soo baratay la isku keeno koodo inaad grammarka ka dhisan tahay dhawaaqay isku xirkii iyo dhinac walba kadib waxaad isku xiri kartaa vocabulary-ga iyo wax walba sida ay yihiin so waan idinkaga faa'iideynayaa qayb walba oo ah ha noqoto vocabulary ha noqoto new words waxay noqon karaan ha noqoto conversation laakiin waxaan idinku boorinayaa grammarka inaad iska xoojisaan waa idin taagan habeenii maalin waan idinka caawinayaa qolada diyaarka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu